guddiga qabanqaabada iyo qaadhaan ururinta wadada sanaaga qaybteeda elafin ayaa maanta galay wejigii labaad ee qaadhaan ururinta wadadaasi waxaana ay maanta ka bilaabeen dhinaca dadweynaha iyo shacabka ku nool magaalada elafweyn haddaba isla waqtigii ay ku guda jireen ururinta lacagtaasi ee dhinaca dadweynaha ayaa waxaa marba marka kasii dambaysa la arkayay oo laga dheehanayay amaba laga dareemayay jeebka shucuurta iyo quluubta dadka oo si weyn u cabiraysay sida ay shacabku ay hamuunta ugu qabaan inay markaliya helaan oo ay arkaan waddo ka hirgashan guud ahaanba gobolka taasi oo sahli doonta adeegyada dhanka horumarka nolosha caafimaadka ganacsiga iyo welibana dhammaan adeegyada aasaasiga ah maxamed saale cali oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada elafin ayaa ka mid ah dadka maanta lacagta bixinaya waxaana uu tilmaamay in markii uu soo gaadhay amaba uu yimid goobtani lacagta lagu ururinayay ay markaliya isbedeshay shucuurtiisa wadaninimo sidoo kalena waxaa maanta si weyn uga dhex muuqday dukaanleyda loo yaqaano garab raratada ee kasoo barakacay dagaalada sokeeye ee ka socda wadanka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya afayeenka guddigaasi maxamed saciid ayaa sheegay in ay maanta si weyn ugu faraxsan yihiin ka guddi ahaan ay shacabku u bixiyeen lacagta qaadhaanka isagoona xusay inay wejiga xiga ay ku tagi doonaan dhinaca miyiga iyo ururinta xoolaha lagaga qayb qaadanayo dhismaha wadadani maanta waxaan ururinay marka qaadhaankii guud ee dadku ay iskoodii ugu bixinayeen lacagtii kale ee qorshaha iyo qaadhaanka lahayd dadku insha Allah waxaan doonaynaa inay keenaan xafiiska guddida qaadhaan ururinta wadada hadda laga bilaabo waa soconaysaa shaqadu waa soconaysaa wixii kale qaadhaan sidii maanta kale ku darsanayo oo ku yaboohayeen insha Allah waxaan ugu baaqaynaa inay keenaan xafiiska oo ay ka soo qayb galaan halkan waxa yaala juwan ka yimi wakaalada badbaadada qaranka Soomaaliland ay soo sameysay hanti dhowraha guud ee qarankuna uu soo saxay waa ka warqaday shaabadii hanti dhowraha guud ee qaranka waxa kale ku jira xisaabiye guud ee qaranka waraaqaha sharciga hadhowto lagu xisaabtamayo nin walba juwanka loo goynayo oo sharci noqonayo waa ka warqada waxa soo saxay hanti dhowraha guud ee dawladda qaranka juwanadu waa kuwaas marka nin walba lacagtii uu bixiyo maanta waxa lagu xisaabtamayaa ilaa ugu dambaysa lagu xisaabtamaya gudoomiyaha degmada elafin baa shaxandulo warsanaya isaguna kula dardaarmay qurba joogta iyo qolqol joogtaba inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga qayb qaataan qorshaha dhisida qabanqaabada iyo qaadhaan ururinta wadada qaybta elafin ee gobolka Sanaag qaybteedii waana la bilaabay toddobaadkii waa socotay waxaan u sheegaynaa shacabka degmada elafin dal iyo dibad in waliba sida ugu dhaqsaha badan uu keeno kharaska wixii la saaray iyo wixii kale oo dusha ka bixinayaba waa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid TV-ga qaranka Soomaaliland elafin